waxa mararka qaar nolosheena soo mara dareemo aad uga culus inay laabteenu qaado cidna ayna la wadaagi karin. dareemadaas xalka kaliya ee aad u hayn kartaa kuna nafisi kartaa waa inaad qorto, inaad u soo bandhigto warqada buugga, qalinkana markhaati uga dhigto. waa mid ka mid ah dawooyinka maskaxeed ee qofku kaga nafisi karo waxyaabaha tirada badan ee maskaxdiisa dhex sabeynaya. warqada iyo qalinku waa laba saaxiib oo aad u wanaagsan oo aad kala hadli karto waxyaabo badan iyagoo aan ku xukumayn, xuduudna kugu xidhayn, kulana yaabayn. waa laba saaxiib oo aad kaga maarmi karto la sheekaysiga bani aadamka oo iyagu ah kuwa mar walba u taagan inay dareemadeena dhaliilaan. qof alla wadaagta sheeko adduunka haddaad ka weydo qalinku nafis buu wataaye waraqa ku qor oo intaada waraqa ku qor oo intaada waraqa ku qor oo intaada. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaantiin aad baan idin salaamayaa, rabadaan mubaarak. maanta waxaan doonaya idinla wadaago mid kamid a barnaamijyada ugu quruxda badan leh ee aan la socdo bisha ramadaan. barnaamijkani wuxuu marayaa seasonkii labaad ama kalkii labaad. ramadaantii hore ayuu bilaabmay, seasonkii labaad xalqadiisii 5aad ayuu marayaa. waxaa soo jeediya oo muqadimka ah sheekh Fahd Al-Kandari. barnaamijka waxaa la dhahdaa wisaam al-Qur'aan. runtii waa barnaamij aad iyo aad iyo aad iyo aad u qurux badan oo qiimo leh. runtii qof kasta oo carabi wax ku daawada ama carabi wax ku fahma ama ku dhageysta waan usoo jeedin lahaa barnaamijkan inuu la socdo. barnaamijkan dulicdiisa, risaaladiisa iyo fariinta uu sidaa waxa weeye inuu ina tuso sida qur-aanku runtii uu u qurux badan yahay, sida qofka qur-aanka noloshiisa oo dhan ka dhiga uu ugu baraaroobo inagoo horeba u ogeyn, haddana ruuxdaada iyo qalbigaaga ayuu dhiirigelin noqonaya markaad daawatid runtii barnaamijkan. sababtoo ah sheekh Fahd Al-Kandari ramadaantii hore iyo ramadaantanba daafaha caalamka ayuu kasoo xushaa dadyo kala duwan, marxalado kala duwan qur-aanka ku xifdiyey, yar iyo weynba leh, caruur iyo dad waaweynba leh. maxay toolay qur-aanka ka dhigay noloshooda oo dhan, qiraa'aadka kale qur-aanka xifdiyey, tafsiirkiisa ku daray, noloshooda oo dhan qur-aanka ka dhigay, sida ay ugu baraaroobeen, sida ay noloshooda u qurux badan tahay, sida runtii cajaa'ib kale ee noloshooda isku bedeshay markii ay qur-aanka u firaaqoobeen. marka fariin iyo duco aada u qurux badan ayuu barnaamijkani sidaa. haddii aad hore ula socotay waad iska garanaysaa, lagaaga sheekeymayo quruxda barnaamijkani leeyahay. haddii aanad la socon oo aad runtii carabiga wax ku dhegeysto ama ku daawatana waan kusoo jeedin lahaa in aad barnaamijkan la socoto oo u noqonaya dhiirigelin kuu noqonaya ruuxdaada iyo qalbigaagaba dhiirigelin kuu noqonaya bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah bishii qur-aanka ay kuu noqonayso daawashada barnaamijkani tallaabadii ugu horeysay aad u qaato dhinaca fahanka iyo dhexgalka qur-aanka, si ilaahay bal albaabada qalbigaaga uu qur-aanka ugu furo. aad baan idin salaamayaa. ramadaan mubaarak.